السلام عليكم داوديال muuqaalkan waa khulaaso kooban oo isku xasuusinayno siiradii nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa inoo muhiim inaan mar walba dhagaha indhaha iyo afkaba ku hayno suubanaheena iyo wixii uu inooga tagay muuqaalkan wuxuu socon doonaa daqiiqado kooban kumana soo koobi karo wixii uu inooga tagay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ee qof walow dib u raac siirada nabiga waad ku liibaanaysaa insha Allah daawadayaal barnaamijkan qaban qaabadiisa koobaad waxaa leh Cabdullaahi Axmed Master Lixle kuraas iyo gambaro wixii aad awoodaan soo qabsado ku soo dhawaada barnaamijkeenan qaybta ku horeysay waxay inoo mareysay markay geeriyootay nabiga hooyadii asagoo jira 6 sano geerida hooyadii kadib waxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam kafaala qaaday awowgii Cabdul Muttalib 2 sano kadibna wuu geeriyooday awowgii nabigana wuxuu jirsaday 8 sano intaa wixii ka dambeeyay wuxuu nabiga la noolaa adeerkii Abu Dalib hawsha uu qaban jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd inuu raaci jiray ariga sharaf ayayna u tahay asagaana dhihi jiray nabi ma jiro ilaa uu soo raacay ari raacnimada faa'iido badan ayaa ku jirto balse midda aan xusayno waa inaad yeelanayso dulqaad sababtana waxaa dareemi kara ninkii soo arkay ari iyo dhibkiisa nabigeena markuu jiray 25 sano wuxuu guursaday Khadiija ayadana waxay jirtay 40 sano haddaan wax yar ka taabano sababta keentay guurkaas Khadiija Allah ka raali ahaadee waxay ka mid ahayd tujaarta ama dadka ganacsatada ah ee ku noolaa magaalada Makka hadba qof ayay u dhiibi jirtay maalkeeda si uu ugu soo tijaariyay waxayna wax ka siin jirtay faa'iidada Khadiija waxay maqashay wanaagga nabiga daacadnimadiisa iyo runtiisaba xasuusnow daawada waxaan ka hadlayno waa intaan la soo dirin oo nabi laga dhigin Khadiija waxay u yeertay nabiga waxayna ka dalbatay inuu maalkeeda ku soo tijaareeyo nabigana wuu ka aqbalay waxayna raacisay wiil yar oo la dhihi jiray Maysar nabiga Khadiija wuxuu u keenay faa'iido badan wiilkii yaraa ee Maysarna wuxuu ooga sheekayay wanaagiisa iyo waxyaabo mucjiso ah oo uu ku arkay Khadiija waxay go'aansatay inay isguursadaan wayna u soo bandhigtay nabigana wuu ka aqbalay haddaan halkaa uga gudubno barnaamijkan sidaan hore idinku sheegayba waa khulaaso aan soo koobayno ee dib u raac kutubtii siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam si aad u hesho macluumaad dheeri ah maantana halkaa inoo joogto